waxaan wanaagsan qayrtooda nagala xirtay halkan barta YouTube-ka Facebook waan kulana maalin baan nagala socotaan rurnimidan waxaan kusoo qaadan doonaa ururka al-shabaab oo hubeeyay dadka shacabka ee ceelbuur iyo ceelgaras kadib markii xaaladdu ay ku xumaatay iyadoo wararku ay sheegayaan in shabaabku markaasi ay dareemeen inuu kusoo wajahan yahay duulaan culus oo kaga imaanaya dhanka iyo dhuusamareeb oo ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanku ay diyaarinayaan qorshe weyn oo shabaabka lagu tirtirayo marka shacabka ay hubka u dhibeen waxayna ku qasbeen inay dagaalamaan maadaama ay xaaladdu ku adkaatay ayaga marka waxaan arki doonaa wixii kasoo kordha shabaabka oo halkaas ay dadka shacabka hubeeyay inkastoo dowladdu ay sheegtaba inay soo gabagabeyn doonto maalmaha soo socda waxaa kale ayadana jirto Idris Alteson in la yiraahdo oo aad u taqaanaan oo nin baraha bulshada aad u isticmaali jiray isla markaana Somaliland aad u xayeysiin jiray qaranka Somaliland maalmo dhix jiray ayaa lagu xiray magaalada Hargeysa sida wararka ay nagu soo gaarayaan Idris Alteson wuxuu dhalasho ka haystaa wadanka Holland laakiin Hargeysa ayuu soo gaaray halkaas ayaana lagu xiray iyadoo horeyna halkaas lagu xiray Bishaar Cali Baande oo iyadana wariye caan ahayd marka waa qofkii labaad oo asagana wariye dibadda ka yimid lagu xiro magaalada Hargeysa xaaladdu halkaas ayay maraysaa waan arki doonaa iyadana wariyahaas la xiray wixii kasoo kordha wararkeena dambe ayaan ku falanqeyn doonaa hadduu Ilaahay raado haddii aan aadna dhanka ilaa Sacanood SSC Qaatuma waxay u diyaar garowday dagaal ay la gasho ciidamada Somaliland ayagoo doonay inay soo afjaraan gebi ahaanba xaaladana si degdeg ah markaasi ay u soo afjari doonaan sida ay ballanqaadyo ku sameeyeen ciidamada ciidamada SSC ee ku sugan duleedka magaalada Sacanood waxay sheegeen inay soo afjari doonaan maalmaha soo socdo nimanka la yiraahdo ciidamada Somaliland waxaa kaloo jirta in xaflad lagu qabtay xalay habeennimadii magaalada Kismaayo taasoo lagu taageeray SSC Qaatumo hogaanka cusub ee doorteen hambalyeena loogu diray iyadoo markaasi hambalyada iska soo daba dhacayso hambalyadii ugu horeysay dowladda federaalk Soomaaliya ay kasoo gaartay mid labaadna waxay kasoo gaartay Puntland mid kale saddexaadna hadda waxay kasoo gaaraysaa dhanka iyo Jubbaland marka waxaa malaysaa in SSC Qaatumo taageero aad u buuxda la siinayo maanta iyadoo odayaashii nabadoonada xalay ilaa maanta ay hadlayeen kadibna ka codsadeen dowladda federaalk Soomaaliya iyo Mareykanka inay taageero buuxda siiyaan nimanka maamulka cusub ee Qaatumo lagu dhawaaqay ayagoo markaasi guul u rajeeyay dadka shacabka xildhibaanada SSC waxay ku baaqeen in dagaalka la galo waqti dambe la sar fadhiyeen inaysan jirin marka halkaasna dagaal ayaa laga soo sheegaya wararkan oo faahfaahsan oo dhameystiran insha Allah wararkeena dambe ay ku maqli doontaan haddana waxaan idin gudbin doonaa qaybta wararkeena kale ee Ethiopia waana ku maasantiin la socodkiina barnaamijkeena ninka lagu magacaabo Captain Sirius horta waa markii koobaad ee aad warbaahinteena maxaan ku dhahay halkan stuudiyaha nagu soo booqato oo aad halkan ku soo biirto ninkan shidana waa dabcan waa istaqaanaan asaguna waa ninka inta badan aad u falanqeeya laakiin bal marka hore inta aanan guud ahaan dadweynaha iyo qodobadeena aan guda galin waan u mahadcelinaynaa bulshada Soomaaliyeed nagu taxan waxaana u rajaynaynaa guul iyo barwaaqo biidnillaahi albaari in guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay maartay ay gaaraan marka labaad waxaan ka codsanaynaa oo barnaamijyadeena waayadan dambe waxaan ku daray codsi ah in ma garanaysaa bal meelaha muxuu ahaa si taataafan meelaha inay tuujiyaan meelaha subscribe-ta iyo like-ta iyo gacantu ay fududahay xagga inay tuujiyaan oo dadku waxay dhahan moogtahay si ay noogu noqoto dhiirigelin bay dhahan moogtahay marka waxa weeyaan meelaha tuujiya Allah idin barakeeyo wararkii ugu dambeeyay dalka Ethiopia oo waa cadow gaamuray ayaa meesha idin ku soo gudbinaynaa marka intaana nagala hakrinina bal waxaan ku bilaabayaa ninka lagu magacaabo Shide waan u soo noqon doonaa Captain Sirius iyo xaaladda dawladda deegaanka Soomaalida ciidamada liyu booliska ee la gurayo oo xog fara badan uu ka hayo iyo saraakiil ku sugan dawladda deegaanka Soomaalida oo xiriir maanta la sameeyay waan ka wareysan doonaa bal Shide ku soo dhow meesha la kala marayo waa dhawahay saaxiibadii aad u mahadsantahay Forogodow dagaalku waa uu sii cuslaaday maxad moodana ciidamada dawladda Ethiopia inay gebi ahaanba kuwa ku fashilmay noqdeen in xoogagan la iska difaaco iyadoo dagaalku uu galay saacadii ugu adkaa xoogaga faanana ay horumarro aad u balaaran dagaalka ka sameeyeen sida aan wada ogsoonahay dagaalku waxa uu meelaha hadda uu ka socday oo ugu culus waxaa kamid ah magaalada Gondar ee caasimada labaad ee deegaanka Axmarada oo xoogagu ay hubkii ugu dambeeyay casriga isku hurgufayaan dadka shacabka waxaan moodaa gebi ahaanba ayaguna inay ku biireen dagaalka iyadoo ciidamada dawladda ay gebi ahaanba halkaasi lagu baabiyay la dhihi kara dagaalka halkaasi ka dhacay magaalada waqooyigeeda iyo koonfurteeda laba dagaal oo xoogan ayaa ka dhacay dhanka waqooyiga ciidamada militariga waa laga awood roonaaday gebi ahaanba waa laga saaray dhanka koonfurta ayay meelo yar isku urursan ayuu halkaasi ay ku go'doonsan yihiin dadka rayidka ayaa sidoo kale waxay sameynayaan inay wadooyinka waaweyn dhanka ciidamadu ay magaalada kasoo geli lahayn inay dhagaxyo waaweyn ku gooyeen halkaana ay dadku qudhigoodba ay dagaalka qayb libaax la ka qaadanayaan arrintan waxay muuqataa arrin ah in gebi ahaanba maamulka Abiy Ahmed waqtigiisa u dhamaaday qaabka uu wax u socdo waxay og tahay inay aqoomiyada Axmarada ama xoogagan dagaalyahanada faana
dowladda dagaalka kula jira inay si fudud ku qabsan doonaan dalka waa hadduu hadda sida uu wax ku socdo uuna waxba iska bedel ama Abiy Ahmed uuna tanaasul Abiy hadduu waxay u badan tahay Abiy horta saacad soo socdo inuu iscasilo oo dhaho miiska wada hadalka isku inta faanana guryahooda joogan magaalooyinka deegaankooda ayaan soo dhaafin miiska wada hadalka isku yimaado xogaga ormad ayaa qeylay waxay leeyihiin Abiy Ahmed oo istaji iscasil xaaladda jooji bileen laakiin asagu waxaad moodaa inuu isticmaalayo awoodii ugu dambeeyay ee dhanka cirka leh ciidamada infantry hadda faana way u barbardhigi laayihiin oo ciidamada infantry way jabeen intooda badan way goosanayaanba ciidamadii markii 2000 askari dagaalka la soo geliyo 500 baa soo caraysay inta kale waxa la leeyahay waxna way dhimatay waxna way isdhiibtay marka xaalka faana waxaad moodaa inay yihiin doofaan loo soo diray Ethiopia waxaad maqlayay Faisal Roble oo asaga dowladda deegaanka Soomaalida ka soo jeeda mar la wareysanayo wuxuu tilmaamay oo uu sheegay inay kaga duwan yihiin nimanka la yiraahdo TPLF dhowr arrimood bal dhowrka arrimood oo la tiiso dhowr arrimood ay TPLF ay kaga duwan ama fursad ay heleen ma fursad ay TPLF heshay TPLF ayada caqabadii qabsatay waxay ahayd qaaradda Afrika iyo dhanba ka soo jeeday qaaradda Afrika oo dhan ayaa cadow warkiisay iyo Ethiopia gudaheeda Ethiopia ka daranba qaaradda Afrika oo dhan cadow warkiisay qoomiyadaha Ethiopia 130 milyan dhamaantood wada heliyo nin walba wuxuu islaam qalab ka soo qaada waa kii Mustafa Lahatolay nin walba wuxuu islaam halka aad soo biri laqaysatid oo tigray wala wada diday laakiin maanta xamaar wax urday mal u helilay hortaas waa fursad gaar ah sidoo kale dawladda Eritrea ee dawladda macangaga ee militariga tigray way la dagaalamaysa dhabarkay kaga dhufaysay Abiy intuu qaaday in ka badan bay qaadayeen Abiy intuu jabinay in ka badan bay jabinayeen ma fahamtay maanta Eritrea waxay garab taagan tahay faano sideedaba Eritrea jabhad ay taageertay weligeed guuldareystana lama arag waa koo hoosteeda militariga dalka Ethiopia markuu dagaalamayo moraalka kaliya ku dagaalamo waxa markii dalka madax banaanisa la difaacayo laakiin gudaha laba noo godho ah oo dhamaantood afxmaar ku hadlaysa oo midnawda haysa xabada ka daacadaha wax dila iyo ka deegaanka iskale kan kale waa nin aan lacag badan qaadanin militariga Ethiopia wuxuu qaataa 5,000 bir 10,000 bir oo qaata 10,000 bir maanta waxaan ognahay waxba ma goyso waa $100 dhamayn ha birisa ma gado Ethiopia gudaheeda waxba kama goyso marka askari sidaasa oo ul baa lagu qaxaynaya dagaalka ul baa lagu soo gelinaya ma fahamtay markay baasho dhowr kii usha ay la dhacay jirayaan kii ma halkii xabada ku qabsanaysa ku hadhay okay waxaa jirta oo warbaahinta Ethiopia iyo kuwa kale caalamiga sida Reuters ee maxaan ku dhahay Washington Post iyo dhamaan wada qorayaan in ciidamo aad u fara badan qaar waxay leeyihiin waa 24,000 qaar waxay leeyihiin waa 50,000 oo ka yimid Eritrea oo hubka daran dooriga sida baan wax u gumaada ku hubaysan in ay soo galeen oo nimanka dagaalka wax ka bedelay in ay iyagu yihiin marka maxay u muuqataa arintaasi waa dhab way jirtaa warbaahinta caalamka dhan baa qoraysa horta sidaan hore u sheegnay Eritrea waqtiga ay dagaalka Tigray soo gashay deegaano badan oo qabsata jira deegaanada qabsata waxaa kamid ah gobolka Walqet ee lagu murasay Tigray iyo Axmaar isku haystaan ee qoomiyadda Axmaarada population ahaan ay ku badan tahay ama dadka hayb ahaan ka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada ay degaan laakiin Tigray 27 sano Ethiopia ay deegaankooda raaciyeen hadda wali xoog lagu haysto ee doodii ahayd markii Pretoria ay ku wada hadlayeen Tigray iyo Abiy Ahmed ay ahayd inay gobolkaasi la soo celiyo Abiy uu awood ku soo celiyo waa ciidamada Eritrea ay saacadaba ay degan yihiin halka waxaa ku yaala fariisimo waaweyn oo faano lagu tababaray iyo ciidamada lagu boorsaday deegaanka Axmaarada sirdoonka Ethiopia in halka galaan waa loo diiday Eritrea u diiday Eritrea saldhigyada gacanta ku haysa Tigray bana kala dagaashaa ma fahantay waxaana laga difaacaa deegaanada xuduudo dhan laga difaacaa ma fahantay faana halkaas lagu tababaray oo dhowr jeer hore dawladda Ethiopia ka hadashay oo Eritrea waraaq loo qoro la yiri joojiya tababarada nagu tababarsan ciidamadaas laakiin ayagu waxay dhaheen anagu waxaan tababareynaa ciidamada Tigray la dagaalama Tigrayna ma ayna qorshahan Eritrea way u hoosgeliyeen hal mar oo kaliya 10,000 oo askari oo la yiri waa liyu deegaanka Axmaarada laakiin faana ahaayeen wax barnaamijku loo ekeysiyay Axmaarada hoosta iska wada ogeed barnaamijku waxa la yiri ciidamada liyu booliska nala tababaraya markii la weydiiyay maamulka deegaanka Axmaarada waxay dhaw ciidamada liyu booliska oo Tigray la dagaalami doona laakiin faana ahaayeen maanta xugu waxay sheegayaan in la soo galiyay 26,000 oo askari oo commandos oo faana ah oo Eritrea lagu soo dabaray Eritrea lagu soo dabaray warqada lagu soo dabaray oo warqada jaakada Ethiopia ma warqad wax ka jira in god hoostiisa isku aaso iyo inay baasta la cuno iyo in geel lagu qasho war ma hayso ma oga meesha Tigrayna war kama hayaan Abiyna war kama hayo afar 3 sano ka hor bay gacantooda ka baxday meeshaas Axmaar ka soo dhashaan meesha Axmaar cusub ka soo dhalata ma fahamtay dagaalyahanada Axmaarada halkaas yaa fadhiisan waa halkaas ciidamada laakiin saraakiil waxaana wada Eritreana wada Axmaarihi Eritrea heshiis hoose gaareen oo la ogeyn sidaba waagi ay Tigray ay xoog soo yeesheen gobolka Axmaarada soo galeen diyaaradaha qumaati ugu dalka Eritrea ciidamada ka soo daadiyeen Baxardaar
ciidamadii dheysi ku gumaaday iyo lalbeela ciidamada TPLF waa ciidamadii laga soo daadiyay Baxardaar marka Eritrea Axmaara qorshay degan qorshahaas inuu hadhow ka fashilmi doono iyo inuu dhab yahan la garan laakiin waa cadow midoobayo halka midoob u midooban waa qoomiyada Tigreeda abi iyo orma caro uma qaba ninka la dhaho siyaasad warki laakiin waxa waay abi siyaasad warki wuxuu ku yiri niyahu marnana Tigreeda leeshin TPLF waxa la dhaho hal heshiinin nimankaasi waan dabar goynayna niman inaga calooshan shaqaystayaal waxaan keenaynaa aan dagaaladii horena qayb ka qaadanin dhalinyarada yaryar ee aan hadda dagaalka lagu carbiyana aan ahayn laakiin nimankana gabrisiyo iyo geetaajo reed iyo geetaajo asaf iyo gabre iyo oo dhan waan xaaqaynaa abi wudiid waa gartay abi galbeed waxniyaa qabtay qaaliba laga jaray adduunka dhan baa laga soo xiray Ethiopia waxa la yiri ayadoo dhamaan yar hawada ka saarayna uu cabsaday wuxuu yiri waa inaan Tigray leeshiyo ninka siyaasiga ballanti waa uga baxay siyaasina ballan wuxuu ku qaaday cadow TPLF go'aan inuu sameeyo cadow TPLF go'aan waa kuwe waa faano waxay aaminsan inta ilaahay ka soo ilaahay ma aaminsanee bila aaman axmaaran uu Ethiopia ku noolaan karin inta ku noola kalena ama Soomaaliya ama Oroma noqoto in loo furayo iskuulo waaweyn iyo macahad lagu diiwaan geliyo axmaariga lagu bar axmaarism axmaarnimada lagu qaato oo la isku diiwaan geliyo adoo axmaara Soomaaliya waan ka socdo waxaan ku biiray qoomiyada axmaarada reer laqba halka ka galay ay qoyay sameynayaan marka nimankan Eritrea waxay wadaan nimanka Tigray baabiilaa marka ay qorsho wuxuu yahay abi aan cayrino abi hadii maanta dhibre maxay meesha shawreeb laga soo baxo ya dhibre birihan yaadii laga soo baxo oo Addis Ababa la soo aado uu carari la shaka Oromia axmaaro iyo banaanka way isku hardii doona Addis Ababa dawladka iska horban doona marka laba mid bay noqon inay meeshan oo horta intuu sanadka ka dhiman 6 bilood oo soo socota dhigta dhiiga la isku daro oo la dhaho 50 milyan baa dhimatay oo adduunka xasuuqan ka dhacay ka dhaco kadib adduunku uu soo dhax galo laba mid doorta Ethiopian ko dhan soo keeno ama iridaha ka kala baxo ku kala taga ma fahanteen ama dawlad yajab ah oo la isla wada ogol yahay oo doorasho ku meelgaar lagu qabto hal isku yiin qudho faana wala xanuujin doona faana maanta day military jibiso Addis Ababa nabad kuma tagaysa raaxana kuma quraacanayso igu qortaas waxa ku nool 10 milyan oo Oroma ku nool oo hadda qoriyo loo qaybinayo ninkii Burhanu Jula u dhamaantood istoorada u qoriyo u qaybiyay nimankaas haday soo jibiyaan military-ga oo iyagu qulqulad soo soodan halka kula dagaalama waan ku soo wada horta Eritrea laftigeeda horta qorshay maagan tahay qorsheed waxa waa in abi la saaro qolantiga in dagaasho soo saaro waa qorshe kale meesha ma yaalo waa inta taageero qor alaarti doon maanta ma horta qorshay Eritrea leedahay qorshaheedu qorshe ka balaaran weey ninka la yiraahdo shidow in Eritrea nimanka la yiraahdo TPLF kaliya in meesha laga waayo la gumaado ma aha qorshaha horta bal ay leedahay Eritreanku ay leeyihiin waa qorshe balaaran dib baan ugu soo noqon doonaa dib baan ugu soo noqon doonaa studio waxaan ugu sugan in lagu magacaabo Captain Sirius ba yaa nagu soo biiray Captain Sirius waxaan rabaa haddaan xaggaaga soo jaleeco waxaan laga daadguriyay meesha lagu magacaabo jigjiga iyo dawlad deegaanka waxaa ka socda daadgureynta ciidamadii liyu booliska ahaa ee dhawaan la bahdilay maxaan ku dhahay kabaha lala dulmaray ee hubkii iyo diriskii laga siibtay maxaan ku dhahay haatan la doonayay intii dib loo yabyabo in maxaan ku dhahay maxaara laga horgeeyo meeshana sidii TPLF la isu dhutaaleynayo ma ahe holac baa ka socda maxaad marka arinta kale eedo maxaad warka haysaa arinta waxaan kale yahay saaxiib way jirtaa arinta nimanka booliska ay la kala diray ee diriska laga siibay in la soo baxtay afuuf way jirtaa arintani waxay ceeb weyn ku tahay waxa way madaxweynaha deegaanka Mustafa Cagjar iyo booliska inuu kala diro hadda saaxiibkay shida soo sheegay ciidamada faano ee Oromada waxa lagu soo tababaray booliska Oromada goorka Tigray baa lagu soo dhax tababaraa siyaasadda Ethiopia iyo booliska waxa tababari jiray makarankayaga tababari jiray marka Mustafa Cagjar meesha axmaar iyo booliska waxa weeye oo heer dawlad goboleed oo heer dawlad goboleeda wadan shisheeya soo tababarayo isaga dhalinyarada booliska iyo diriska ka siibay qoriyay reeraa akayaalka iyo basuukiyada ka haysteen wuu ka ururiyay taasi waa ayaan daro meesha la rabo waxa weeye hubka Soomaaliya yaala inuu maanta waxa weeye booliska uu soo gado oo booliska uu laban laabo oo uu tayeeyo iyo marka kala diraya marna wax way loo yeedhaya marka nimankan kilka ku sugan Mustafa Cagjar ugu horeeyo iyo Aadan Faarax iyo Axmed Shide nimanka Soomaalida ah waxay sugayaan oo kaliya cunuga waxa la yiri ya aabakwa wuxuu yiri hadba hooyaday waxa ninka guursada waxay sugayaan oo kaliya qowmiyadii waxa way federaalka la wareegta umba u nacamlayaan marka waa runta arintaas way jirtaa
ciidamo 5 kun oo boolisa ayaa dib loogu yeeray oo reerahooda loogu yeeray oo waxa way ciyaalkooda u xiranay geelooda raacanay ayaa dib waxa way loogu yeeray oo direeska dib u qaata la yiri marka arintaasi waa arin khalad ah waa arin khusaysan ma aha booliska inuu tayeeyo waxa way Ethiopia aan ka hor dhowrno oo waxa way qowmiyadii adkaata aan la xisaabtano ayay ahayd laakiin in waxa way maanta wiil Soomaaliya goojam iyo goondar uu ku dhinto waa ayaan daro marka arintaasi waxa weeye waa arin jirto weeye in booliska dib loogu yeeray marka qodob kale aan rabaa inaan ku darsado aad shida weydiisay waxa tiri Ethiopia Eritrea hadafkeedu ma inay yani ay bedeshaa Abiy Ahmed oo qof qowmiyad iyada u nacmalaysay meeshii geysata miyaa arintaasi way jirtaa laakiin waxa kale oo jirta Abiy Ahmed Afwarqi wuxuu ogyahay Ethiopia inay ciidamo bad ay samaysanayso ayaan hore waa ka hadlay meesha bad waxa weeye haraa ku taalo waxa la yiraahdaa mataaraha la dhahay sababteeda ku taalo yaa lagu tababaray ciidamada Ethiopia badda ay navy lagu tababaraa marka wuxuu ninkaasi ka dagaalamayaa in Ethiopia aysan bad yeelanin Abiy Ahmed waxa weeye wuxuu ku dhawaaqay qorshe qarsoon miiskoos yaali jir ilaa miniligi miiskoos yaala ayuu ku dhawaaqay oo Ethiopia inay bad ay hesho way ku taaban Ethiopia laakiin Abiy wuu ku dhawaaqay wuxuu yiri ama xoog baan ku ilaan aan baryo meesha uu ku wadana waa Soomaaliya meel kale ma ama waa Berbera ama waa Boosaaso ama waa Muqdisho ama waa Eritrea ama waa Eritrea marka Afwarqi isagoo arinta labaad ee u labaysana waa arintaas marka deegaanku waxa weeye waa deegaan dawlad deegaanku soo laabto dawlad deegaanku waa meesha waxa weeye nin kasta uu ka kalluumaysanay aqoonta weeye marka Mustafa Aljar meeshii la rabay inuu booliska deegaanka tayeeyo oo hubeeyo qoriyay kayaasha kayaan way siiyeen ee waxa weeye wada kitibahayay waa intii booliskeennu ma hubaysana baara military baa la dhahaa mushaarkooda asalka waxa ingiriiska bixin jiray marka baramilitary waxa weeye qorigu weyn wata ma bari duleel iyo RPG ga basuuka Soomaalidu yaqaan Ethiopia laakiin RPG baa laga dhahaa booliska waxa weeye dawlad deegaanka waxa ka hub fiican oo waxa ka hub wanaagsan jabada ICC ka dagaalamaysa nimanka dhul bahata ay leeyihiin baa ka hub wanaagsan kuwa taangiyada biyaamyada iyo wata waxa weeye jibti iyo madfaci hubiyaha wata weeye booliska qorigu weyn ay sitaan waa bari duleel iyo basuuka marka inuu waxa weeye Ethiopia way isku urursanaysa dawlad deegaanka si qowmiyad kasta dawladda ku aadan bay wax ka soo gaareen amxaaro Eritrea Suudaan bay dabada la gashay isaga waxa la rabaa hubka Soomaaliya ceeyaaga ee sharci la'aanta ee baydhabo yaala ee Boosaaso yaala ee Garowe yaala meel ilaa mushadaas inuu intuu deegaanka soo galiyo iyo booliska si hoose u tayeeyo oo waxa weeye qorshayaasha iyo qowmiyad kasta way tashanaysaa ay ka tashay oo si hoose ugu diyaar garooba la rabay meeshii halka laga rabay iyo booliska waxa weeye akayaashka qad direeskina ka siibay duruucduna u xiray haddana wuxuu duruucdii siiba oo kaalay waxay mar labaad amxaaro Oromo u dagaalama marka waa ayaan darada deegaanka haysata weey waan ku soo noqon doonaa Captain Sirius waxaa dhankayga bidaxa fadhiya wali ninkii saaxiibka ahaa shida inta badan ka faalooda xaaladda dalka Ethiopia shidow haddaan kugu daro siyaasadda qaarkood waxay leeyihiin Eritrea ujeedadeeda kaliya ma aha in ay baabi'iso ama ay ka xanaaqday wax la yiraahdo heshiiskii Pretoria xanaaq uu ku jira laakiin qorshahoodu wuxuu ahaa inay gacanta ku hayaan ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed oo reer galbeed ay ka soo reebaan qorshaha kale ayadana meesha wax fashilay wuxuu ahaa sidoo uu sheegay Captain Sirius waa dekadahan ay ku dhawaaqday ilaa iyo Ruushka uu tagay labadooduba way tageen Afwarqi iyo ninka lagu magacaabo Abiyaba labadooduba way tageen laakiin qorshaha waxa meesha ka saaray waraaqaha uu la soo baxay uu yiri waa inaan qasabad helaa ninka lagu magacaabo Afwarqi iyo dawladda Eritrea in badan bay ka diyaar garoobayeen laakiin qorshaha Eritrea waxa weeyaan oo wiilka askariga ee Eritreanka markuu 17 jiro waxa weeyaan secondary school dhameeyo waxa la geeyaa dugsiga tababarka ee dhibowga la geeyaa 2 sano soo qaataa markaas mushaarkana loo bilaabaa shaqadu doonayana uu shaqeystaa markaas uu jaamacad aadaa waa wiilka yar Eritreanka sababtuna waxa weeyaan waxa loogu shaqeeyo dugsiyada loogu dhaga wiilka yar Eritreanka dalka Eritrea ma madax banaana ilaa an Ethiopia aan kala diro oo qowmiyadahan la sukan keenay qowmiyad walba ay dawlad gaar ah noqoto adduunka ay aado sidaana aan ku xukunno maxaan ku dhahay geeska Afrika laakiin inta Ethiopia is haysato xormanihim baa la yiraahdaa marka ma isleedahay ninka lagu magacaabo Afwarqi iyo Eritrea
nimankan la yidhaahdaa faano ee dagaalamaya waa kala ujeedo laakiin barbarka kalena waa isku ujeedo waa kala ujeedo oo ninka lagu magacaabo Afwerki wuxuu rabaa markii adsaba la soo gaaro in qowmiyad raacada in sijirno qolo walba ay goosato lagu kala carar meesha waa say doonayaan oo waayo 91 markii Eritreanku ay soo galeen ninka lagu magacaabo Shidow waxay dhaheen waxaan naga hoos baxday waaga awood baan u lahayn inaan Ethiopia kala qaybino u qaybino maxaan ku dhahay dawladda yar yar marka dhanka kalena amxaaradu qorshoodu waxa weeyaan Eritrea idan la socoto idan bargantaalaysa aad xukunkii mar labaad ku soo noqotaan iyo tigdhamtii iyo wixii la oran jiray Ethiopia khiyaariga ah haddaba ma isleedahay adiga shakhsiyan markii aad sabab la soo gaaro difaac quman oo Oromiya uu ka hor iman kara ma isleedahay qorshaha kala diridda maxaa ku Eritrea uu hirgal ma isleedahay anigu horta fikradan uu aaminsan siyaasa Afwerki iyo kayfaana aaminsantahay waxana heshiis way ku yihiin waxana heshiis kuma heshiis mid way ku yihiin oo abi in la rido ma fahamtay laakiin Addis Ababa intii la tago Ethiopia si dhisnaato heshiis kuma ninkan siyaasa Afwerki laba isku darsantay abi oo ka hor yimid oo balantiisina uga baxay oo raba inay Tigray si noolaadaan siyaasada abi kuma raacsano oo waatay ku kala tageen waay middan kale ah in Ethiopia sii jirto oo intuu nidaam kala qabsado wali quwadii ay sii shaqeyso siyaasa ma rabo laakiin faana mid ay rabtaa faana waxa rabtaa abina in la rido quwaduna ay sii jirto quwadda sii jirtaan asiga faana isku dhici doonaan faana waxa rabtaa in ay adsaba sinada ku qabsato dawlad disto ra'iisul wasaare Axmaara la keeno madaxda Ethiopia qowmiyadda la soo keeno halka dawladda Ethiopia ka shaqeysa laakiin siyaasa wuxuu rabaa maalinka Addis Ababa yiin inuu Oromada dhaho iska celiyo nimanka Oromada la hadlay markaana nimanka mucaaradka Jawhar Maxamed Bagala Garbi iyo Xamse Borana iyo la hadlay wuxuu leeyahay shacabkiina 40 malyan ka hor keena Addis Ababa daqiiq wax wada sixiro reer galbeedka soo galaan marka miiskooda halka isku yimaado Ethiopia qolo walba irida ka baxaldo laakiin tan abin la rido taashiisa ku yiin middan badahana kama bilaaban baashan badaha ka horeysay abi intuna bad sheegin khilaafkan waa ka horeeyay nimankan faana ah iyo abi Ahmed waxay isku dhaceen waqtigii TPLF wada hadalka la bilaabay TPLF ay ka laabteen dagaalka TDC ka baxeen maqala lagu celiyay heshiisku bilowga wada hadalka ayaga galbeed ku socday iyo ninkan wuxuu yiri marka asoo wuxuu joogay ninkan siyaasad farqi ciidamadiisu waxay joogeen goboladan hadda baashi maxay والقيد iyo Humayri iyo deegaanadaas dhib haysteen ay waliba hayaan Axmaarada ay isla joogeen asiga Axmaarada waxay duulaa bay ahayn reer galbeedkii leeshii nimankii Axmaarada iyo Eritreanka oo isla socdo dhulkan xuduudda Suudaan iyo ilaa Walqeyd ilaa Humayra ilaa deegaanada ilaa Baar geeskan dhan ayaga haysteen oo duulaano Tigray garaaciyo habeen dhar garaacaya iyo reer galbeedka ku dacweeyay Eritrea waxa la yiri jooji garaacadoodan duqeymahana joojiye ciidamadiinu taaka halka ma dhaafi karaan inigi wax isla socda Axmaarada dhulka ka baxalay reer galbeedku wuu diiday ما فهمت خلاف مال كاسو بلوده بدنا لقمه ولا هلين خلاف كتغري lagu qodis markii arin saad nimanka Axmaarada waxay u tageen ninkan siyaasada Afwerki ruuxda ninka wada artay inuu Tigray soo nooleeyay inuu dawladdu ku darayo wada hadal la furay duqeymiina ka daayay oo yiri dagaalku waan joojinay ciidamada federaalka uga sida nabada maqala ku tagay Tigray la shiray taliyaashii booliska ay tageen federaalka meelkaas la soo dhunkanaya laga soo qaaday caawdala laga soo qaaday wixii dagaal dhacay halkii milyan qof waa la iloobe caawdala Tigray iyo Oromiya heshiis laga soo qaaday maalinkaas Axmaari iyo Eritrea wada hadleen waxay ku wada hadleen horta Axmaaray inayna durba tooshka isku furin tooshka abiinayna isku soo waqti ay qaadato ad wax ku abaabulataan hay'ad wax ku abaabulanaysan waxaad ku abaabulaysaa deegaanadan gacanta ku hayno inay dawladda Itoobiya waxba ka ogeyn halkaas dhalinyarada ka soo daableys faan waa kaad ogeyd faana iyo ciidamada militariga maalin kasta baxardaar bay yaa la garaacay saraakiil faana oo la xiray barin soo deynay intii loo dacwado walaana khilaaf ma wadno dawladda naga deysay joogta saraakiisha caburinayo babada lahay si xildhibaanada mucaaradka waa kay qayliyeen baarlamaanka dhaxdiisa abiyo is casishayeen Axmaarada nabad bay rabtaa iskeen dhanay markii xabsiga laga soo daayay waa kii baxardaar kaga dhawaaqay in ayna waxaan hadda Ethiopia la leeyahay inuu waxba ka jirin abiina uu waxba wixii meel la sii shaqeyn doonin Axmaarada ay go'aan soo saari doonto iskeen anaga wuxuu tagay Eritrea halkaas ku soo shiray qorshahan Eritrea Axmaara muddo dheer bay abaabulayeen ilaa guutooyin si gaar ah u tababaran la soo tababaro la carbiyay oo la hubeeyay oo si diyaarsanaa weligood qorshaha mar goorma bilowday qorshaha wuxuu bilowday maalinka Liu Booliska kala diray Liu Booliska maalinkii lagu dhawaaqay ay hawsh si fiican isu gaartay Liu Booliski markii arintooda bilaabatay gobolka Axmaarada
dileel baa ka dhacay fuxshi ah 350 saraakiil oo liyu boolisa oo intii si xoog ah oo joojooba hubka looga qaaday oo dharkii looga furfuriyaa basas lagu guray adsaba loo waday oo la yiri haw bedelasha ay dalsay waxba kama laakiin waxa la rabay in la masaafuriya la rabay gobolka xamaarada la dhaafiyo waa kii ay jabhadu dhaxda u gashay ayuu kulku waxay leeyeen dawladdu waxa ku yeesay faana laysay igi faana ma laynin oo wal eeba laysay oo lagu shaqada loo shaqoolay oo la yiri nimanka adsaba yeelan xamaarada ka saxal qudha laga jaray liyu booliska markaa ayuu gidoodeen liyu booliski nimanka u gacan haadiyay oo Eritrea la degan oo meeshan wulqayd dhulka degan liyu booliski xamaarada oo ah ciidanka ugu tirada badan hadii ciidanka dan ciidanka labaad baa ahayn liyu boolisiyada deegaanka ka Oromiya bas ka badan baa la dhahaa ka Tigreeguna lambar 3 ba ka Soomaaliya lambarka 4 baa ma fahad meeshaas isku shubeen marka xabad goosgoos ah bilaabatay xabadii goosgooska markay bilaabatay dee go'aanka la soo waday waxa la yiri hadda waa waqtigii lagu kala bixi lahaa baashu halkaas ka bilaabatay laakiin heshiis laguma adsaba inay nabad haato laakiin waxa heshiis lagu yahay abi in la rido أبين الرئيس لوجه لكن فانا وحتى متابل كود أو قرن إن أي قبل كحمارة وكلية قبصدان مركي هالك قبصدان أبي ده لو متسوقل أما وضع الشقين إثيوبيا إنما إحنا قاعد أحس والشرع يتوب له كان زمي أنا وفانا وحنيا أنا غفور لي وحبك كابريين أما دجال لكن أسوي حنيا أتسوي أصعبانه أتسوي كدي فاعية لكن أدو صدر كسي وضو أتسوي شيء قرقيز لو هرين هذه أدوات ما ستاي شيدو وحان ربع لك حسوسينا ضدك ماشي نجاجتها حن برتن يوتيوب كان كلنا نجاجتها محاسوسين نقول حسوسينا قضبة إنه واحد قضبة أنا برنامج كنا ضمبا أي كل جيسون دونا قضبة وحكم ده أبي إذا مديس ملايين تأيي ميليشيات كان محل الدفاع إلى أيهين محن كل هاي جوابها فريمة محي كوب محي أوب بنينا يعني يشان تكون أقف أتصل لو حري شان تكون أتصل لو حري أم حارة أجنح ستة أي سياسيين تي دبلوماسيين تسوق جرا وانكو قضاء ديك دونا أي وليبا مستقبل كإثيوبيا وحو كودن بين دونا وأنا إذا ما هالعلنا هي كابتن سيريوس ينك لوجو مجا عباشيدو أنت بدن إجلا فالله ده حالة هالدل كإثيوبيا ده وضي البرنامج كثير شرقية سبسكرايب سنسارة صاحب دين اللي وذاك حالة يقودن بيدل كإثيوبيا أيان اللي وذاك دونا وحالنا هالسومالي ده هذا سنتو سومالي ده يسرع ذو ملك سيتشوجان برواقية برارة أيان ذكوجنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.